xilli maalmo uun ay ka harsan yihiin inuu xidhmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa mashquulka dhaqdhaqaaqa suuqa, iyadoo ay si weyn uga dhex muuqdaan kooxaha ka socda horyaalka dalka Ingiriiska, Isbaanishka iyo Talyaaniga. Ha yeeshee, horyaalka dalka Ingiriiska oo ka mid ah horyaalada ugu xiisaha badan caalamka ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u bilowdo 2 asbuuc kadib, waxaana haatan kooxuhu ay bilaabeen diyaargarowga xilli ciyaareedkan. kooxaha sida weyn uga dhex muuqda waxaa ka mid ah kooxda Tottenham ayaa haatan waxa ay doonaysaa inay keento weeraryahanno afka hore uga ciyaara, waxayna haatan ay cadaadis adag saaraysaa kooxda Bournemouth si ay uga iibsato ciyaaryahanka Dominic Solanke, kaasoo si weyn uga dhex muuqda suuqa. Inkastoo uu jiro kulan ay yeesheen kooxaha labada dhinac, haddana waxaa la sheegayaa inuusan kulankaasi weli uusan ka soo bixin natiijo wax ku ool ah. kooxda Bournemouth ayaa waxaa xiddigani looga qaadan karaa oo heshiiska uu kula joogo lagu burburin karaa lacag gaaraysa 65 milyan oo euro. William Bacho ayaa soo gaaray magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska si caafimaadka ugu maro maalinta berita ah kooxda PSG oo dhowaan kala soo wareegtay kooxda Frankfurt ee dalka Jarmalka, kadib markii akoonkeeda kooxdaasi ay ku shubtay lacag gaaraysa 40 milyan oo pound, taasi oo ay la socoto 5 milyan oo ku xidhan qaab ciyaareedka xiddigan. Bajo ayaa qalinka ugu duway kooxdani ka socota dalka Faransiiska heshiis 5 sano ah oo kooxdani kula joogi doono. kooxda Manchester United ee reer England ayaa weli ka jawaabin dalabka kooxda dalka Faransiiska ee PSG oo ay ku doonayso inay ku soo qaadato xiddiga Sancho kadib markii dalab ay ka soo gudbisay. ciyaaryahankani sanadka hore amaahda ugu baxay kooxda Borussia ayaa haatan u muuqda mid ka sii baxaya garoonka Old Trafford. Ha yeeshee, Sancho ayaa laga soo xigtay wakiilkiisa inuu asbuucyada soo socda ka tegi doono kooxda. Fiorentina ee dalka Talyaaniga ayaa soo bandhigtay xiise ay u hayso ciyaartoyga kooxda Juventus Western Makinan, kaasoo si weyn loo hadalhayo inuu ka dhaqaaqi doono kooxdani lagu naanayso Murada Duqda, waxaana ciyaaryahankani si weyn loola xiriirinayay dhowr bilood ka hor inuu u dhaqaaqi doono kooxda Aston Villa ee horyaalka Ingiriiska, laakiin kooxda Juventus ayaa iska diiday inuu qayb ka noqdo heshiiska ay kooxda Juve kula soo wareegtay ciyaaryahanka reer Brazil Douglas Luiz. Ha yeeshee, 25 jirkani qadka dhexa kubadda ka ciyaara ee reer Amerika ayaa lagu wadaa in toddobaadyada soo socda uu ka dhaqaaqi doono kooxdan, isigoo loo badinayo inuu ku biiri doono kooxda Fiorentina. kooxda Inter Milan ayaa xaqiijisay in weeraryahanka reer Argentina ee Garaboni uu ku biiray kooxda Olympique Marseille, isigoo la sheegay in heshiis amaaha uu kooxdaasi ugu wareegay. 19 jirkani ka soo jeeda dalka Argentina ayaa 1 sano amaaha ku qaatay kooxda Fiorentina ee dalka Talyaaniga. Ha yeeshee, fursad ayay u haysataa kooxdani Olympique Marseille inay iibsato xiddigan, iyadoo ku iibsan karto lacag 36 milyan oo pound ah oo ay la socoto 4 milyan oo ku xidhan bandhigiisa. ciyaaryahanka difaaca ee reer Faransa ee Raphael Varane ayaa ka fikiraya halkii uu u dhaqaaqi lahaa mustaqbalka, maadaama asbuucyada soo socda uu ka dhacayo heshiiska uu kula joogo kooxda Manchester United, waxaana laga xiiseynayaa horyaalka dalka Talyaaniga. 30 jirkani reer Faransa ayaa haysta fursad 2 sano ah oo ugu saxiixi karo kooxda Man United oo doonaysa inay sii hayso. tababaraha kooxda Real Madrid Carlos Ancelotti ayaa u sheegay ciyaaryahanka Dani Ceballos inuu u furan yahay albaabka, waxaana lagu soo waramayaa in Dani ay fasaxi doonto kooxda Real Madrid. 27 jirkani reer Spain ayaa muddo ku sugnaa garoonka Santiago Bernabeu, laakiin waxaa loo sheegay markan inuu boos uusan ka banaaneyn kooxda Real, isla markaasna uusan qayb ka ahayn xirta macallin Ancelotti oo ololaha sanadkani ku duulaan tagayo. ugu dambeyntiina, kooxda Arsenal ayaa dadaal adag ugu jirta xalinta weerarka afka hore, waxaana lagu soo waramayaa inay rajo fiican ka qabto inay la soo saxiixan doonto ka hor inta uusan suuqa xilmin weeraryahanka xulka dalka Sweden ee kooxda Sporting Victor Gyökeres. laakiin waxaa jira tartan adag oo ay kala kulmayso kooxda Liverpool iyo Tottenham. kooxdani ka socota garoonka Emirates ayaa diyaarsatay liisada weeraryahanada ay doonayso inay ku xaliso weerarka afka hore, waxaana kooxdu ay bartilmaameed ka dhigatay ciyaaryahankani reer Sweden Victor Gyökeres iyo xiddiga 25 jirka dalka Nigeria ee kooxda Napoli
Victor Osimhen.